halkani waa Lifeline Soomaaliya oo idinku soo dhaweynaysa barnaamijkii cunto kariska. Maanta halkan waxaanu idinka tusi doonaa sida loo sameeyo rootiga bagarka. Bagarka waa rootigiisu waa rooti caana dadka inta badan way wada yaqaanaan. Marka qofka hadduu garanayo sidoo rootiga loo sameeyo hatta waxa laga yaabaa inuu maqaayad bas samaysto uu bagarkiisa iyo chipskiisa iyo waxa uu ku iibsado. Marka halkan rootigii ayaan rabnaa inaan idin tusno taad u sameyn leedeen. Marka ingredients-ka waxa loo baahan yahay in rootiga lagu sameeyo waxa weeye 3 koob oo burka brown-ka. halkan waxaan isticmaalaynaa burka brown-ka inkastoo dadka inta badan ay isticmaalaan daqiiqda ama burka cad, laakiin halkan waxaan isku darin labada bur, kan cad iyo kan gaduudan iyo kan cad. marka 3 koob baad u baahan tahay whole meal brown flour iyo 3 koob oo white flour burka cad iyo 2 malqacadood oo caano powder. laba malqacadood oo khamiira ama yeast iyo 3 malqacadood oo cusbo ah iyo 2 malqacadood oo sokorta ama waxaad ka dhigi karaysaa mid ama laba waa sida adigu aad rabtid. hadda dadku waxay u badan yihiin dad maxaan ku raadin sokorow qaba, marka waa inaanu hatta cuntada aanu cunayno inaanu isbedel inaan ku sameeyno, aanu ka yareyno sokorta. ma wanaagsan sokorta in maarta lagu badiyo, laakiin qiyaas baa loo baahan yahay. marka wixii oo dhan markaad isku shubtid waad qasaysaa. marka si fiican aad u qastid waxaad ku daraysaa koob oo porridge-ka, isagoo sidiisa ayaad ku shubaysaa, waad ku daraysaa. rootiga bagarka waxaan hadda aan ku darano inta badan lama isticmaalo, waxaan sidaan aan u yeelano si uu maartay qofkii uu u ogaado inuu dhowr nooc uu sameyn karayo, waxyaalo badan uu ku dari karayo. waxaan doonaynaa dadka aan ogeysino inay ogaadaan rootiga maaha bur keliya in laga sameyn karayo, waxyaalo badan baa lagu dari karaya. marka hataa waxyaalo badan oo aan idin tusi doono. waxaan rabnaa in maartay cuntada aan cunayno inay noqoto cunto nafaqo leh. ma inaan weligeen baan ku ekaano canjeero iyo aroortii canjeero, habeenkii canjeero hal cuno marmar ma xumo. aniga ma lihi canjeerada way xun tahay, laakiin waxaa la rabaa inaan ogaano waxtarka uu leeyahay cuntada aan cunayno, nafaqada inaan ka fikirno aan ku dadaalno. caruurta cuntada aan siinano, anaga ku dhinac cuntada aan cunayno, maxaa yeelay cuntadii maanta markii nutrition-ka loo eego waxay noqoto cuntada haddii nafaqadiisu uu miisaan leeyahay inuu jirka uu difaaca uu jirku leeyahay, difaaca systemkiisa oo dhan inuu xog u yeelayo. maxaa yeelay naqs hadduu yimaado uu wax iska dhimo wixii jirka ugu baahnaa, cudur baa imaanaya meeshii. cudurkiina markuu yimaadana dhibaatooyin baa imaanaysa oo ka mid ah maxaan ku rahaa kharashkii dhakhtarka iyo waxa. marka waxay noqonaysaa in aanu isticmaalno lacag aad u fara badan xagga dawooyinka iyo xagga isbitaalka iyo wixii la mid ah. waxaad aragtay dad qaarkood inay u tagaan ilaa dabadda ilaa India iyo Europe inay maxaan ku rahaa Afrika ka tagaan iyagoo
doonaya in ay isdaaweeyaan. marka cuntada haddii miisaaman tahay oo cuntadii aan ku dadaalino oo aan ognahay jirku wuxuu u baahan yahay ama wixii uu ruuxa uu cunayo uu yahay wax maaragtay jirka uu roon yahay, marka waxaa meesha imaanaysaa inuu qofkii uu noqdo qof aan u baahnaynba xataa dawooyin iyo dhakhtarba. marka rootigii waa kaa markii si wanaagsan loo xashay oo maaragtay la sameeyey, saliid baa markaa la marinaya. xataa tan cad, daqiiqda cad haddaad isticmaalaysid sidaasun baad u wadaysaa, markaa saad dhigaysaa in muddaa siduu maaragtay uu u kaco. muddaa baad dhigaysaa adiga ilaa 2 saacadood ama ilaa 2 saacadood iyo badh. markaa kadibna waad ku soo noqonaysaa, waxaad ku xashaysaa oo aad ku samaynaysaa burkii cadabaad korkaad ka saaraysaa, markaas haddana aad warwareejinaysaa. markaasna saxankii oo foornada la gelin lahaa ayaa waxaad marmarinaysaa saliiddaasoo hadhow ka celinaysaa rootiga banska inuu aanu qabsan trayga. marka qiyaastuu yahay unbaad u dhigaysaa, waa isbarbar dhigaysaa. markaa dhigtid oo waxaan ku dhahdaa hawshaada dhammaysid, kor waxaad ka marinaysaa biyo si uu maaragtay burki u yeesho wax dhegdheg ah oo kale. kulligood baad marinaysaa, markaasaa waxaad dusha kaga daadinaysaa fennel seeds ama wixii aad heli karaysay, ama ha noqdo loos ama waxyaalaha la mida. iyo adiga borojkiina dhinaca kale ayaad dusha kaga shubaysaa, borojkii oo sidiisa. waxaad ogaataa marka horena biyaad marisid, biyaa markaad marisid rootiga korkiisa wuxuu yeelanaya wax dhegdheg oo kalea oo gaam oo kale buu yeelanaya. markaad ku daadaadisidna wuu qabsanaya, wixii ka dhici maayo. markaasaad foornadii ayaad gelinaysaa, foornadii iyadoo oo aad number 5ka aad geysay, cabaarna uu shidnaa. foornadii oo kulul baad markaa dhex gelinaysaa rootigii ama banskii. marka waxaad sugaysaa muddo ilaa 30 daqiiqadood ayaad sugaysaa, ama muraadaad ka eegaysaa ilaa uu noqdo brown, oo korkiisa uu xoogaa brown uu noqdo, kuwaad aragtid inuu diyaar yahay. markaasaad ka soo saaraysaa. markaad ka soo saartidna waa sidii aad u isticmaali lahayd adiga markaa garanaya inaad bagar aad ka dhigi karaysid, hilib iyo waxaad ku cunaysid.